waxay igu sii naxdin badneed arkay waxay ahayd dadka meesha jooga markaan weydiinay maamo la sheegay inay dadka dharka dhaqa ahayd oo baaf dharku waday marka la arkay macnaha aniguna dadkii arkay aan ku jiro xubnaheedii oo kala yaala iyo baafkii dharka ku jiray sidiisiya kula wanaagsan daawadayaal anigu waxaan ahay Kaafish Xuseen waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kadiska kulanka Hargal TV oo inoo noqon doono barnaamij taxane ah isla markaana aynu ku wareysan doono dadka saameynta kula bulshada dhexdiisa barnaamijkeena qaybta ugu horeyso waxa marti ugu ah ciida aroos maagana oo kamid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho ciida markuu ugu horeyso waxa ku soo dhaweynaya barnaamijka iyo waliba Hargal TV بسم الله الرحمن الرحيم كافيش حسين آدم ما سنتهاي وان كدوه هاي برامج كديس كيو كلن كهرجل تيفي وأنا كوم هذا علنا حنكفرح سنة إن نقضي قفكي كوبا برامج كان كسوق بقاتا. دي طبعا أنا ونوا فرح سنة هاي أنا نقضي قفكي جوري برامج كان كسوق مقضى. طبعا. برامج كان امتحان وينوسي عندنا عيدو قرما كسب بيرتمي هنا داني صحافة نادو ما سنتهاي كافية طبعا مهنة الصحافة ده حكوا بيري بلوغ سنة كلودي كوني لحيتونكي أدو إسكدماتكي ونلبدي كوني شريتون لكن لحيتونكي إلا كوسد حنا كجرا هاد مدشن سنة وهاك عيدو بل إنه تتاوى هالإيلابو تيفيدي أمراضياشي أتكسر شقيس كلامتكي جوري متكوها waata ma santahay kaafiyo dhowr warbaahinada kala duwan magaalada ku yaala ayaa ka soo shaqeeyay idaacada Afrika kamid idaacadaha magaalada ugu horeyntii ka soo bilaabay muddo sanad iyo badh aan halkaas ku soo qaatay waan ka digarogtay waxaan ku biiray idaacada Kismaayo kamid idaacadaha magaalada iyadana waqti baan ku qaatay dhamaantoodna waxaan ka bartay dad asxaab aad u wanaagsan dhamaantoodna halkan aan ka salaamayo kadib idaacadii saddexaad waxay raadiyaha Simbe magaalada Muqdisho oo aan isagana muddo ka shaqeynayay kadib sidaas baan ku soo xiray dhinaca warbaahinta dhanka maqalka raadiyaha kadib anoon mihnada ka sii bixin hadana waxaan ku biiray mid kamid ah TV-yada Muqdisho TV waxaan ka shaqeeyaa leedahay codka bariga Afrika oo TV-yada magaalada Xamar ku yaala ah muddada halka sano ee barka ugu dambeysayna isaga ayaan ka shaqeeyaa marka la yiraahdo shaqo warbaahin la qabanayo shaqooyinka waa tiro badan yihiin booda noqonaysa barnaamij soo saara noqonaysa TV-ga hadda ka shaqeysid qaybtii aad ugu qabilsan kaafi aad ma santahay dabcan waxaan kamid ahay teamka reporterada magaalada waxaan TV-ga u ahay wardoone anigoo wardoona ah oo titalkaygu yahay wardoone hadana waxaan ka qayb qaataa si maalinle ah shaqooyinka gudaha ka socda haday tahay akhrinta wararka hadii ay tahay soo saaridda barnaamijyada oo ay jiraan barnaamijyo gaar ah aniga oo aan TV-ga ka qabto ama aan ku leeyahay mihnadaani muddadaas aad soo sheegtay ee 5 sano ee aad ku jirtay caqabadihii ku qabsaday maxaad ka xasuustaa hal iyo laba aad ma santahay kaafiyo horta wax walba loo bilaababa caqabad iska leeyihiin noloshu bayada caqabad ka samaysan dabcan horta warbaahinna wad ka warqabtaa qof looga waramayo ma tihid dhibaatooyinku iska xoogo aad iskaga fara badan yihiin hawo ugu horeysay midda dhinaca dadka kala kulmaysid oo kala society-ga maxaad wariye ka doontay gabadha tahay kuma fiicno oo kale ama in adi ahaantaadiba adoo qof wanaagsan laga aaminayna tahay qof aan dhowrsoonayn oo aan fiicnayn oo ah caqabada ugu weyn aad u malaysa hadda inay laakiin laga gudbayo sidoo kale caqabada labaad oo ah mid aad kala kulmaysid goobta shaqada aad u aaday maadaama dadka kaaga sii horeeyay ay yihiin dad iyagu iswada yaqaana oo aan adiga aqoon badan ku lahayn in caawin aad weydid oo kale aad isciishid caqabadahaas ugu waaweyn waxyaalaha kala kulmay dhacdo aad istiri waa dhacdadii kugu xanuunka badneed ee aan dhahdo ku aragtay mana la wadaagi kartaa kaafiya horta dabcan dhacdooyinka aad la kulmaysid way kala duwan yihiin anigu muddadan wardoonaha ahaa dhacdadii ugu xanuunka badneed arkay waxay dhacdadii 18 December sanadkan soo dhaafnay isgiska ex control afgooye Muqdisho ka dhacday waa dhacdo dabcan aad macnaha marka qaraxii Zoobe 17 laga soo tago waa dhacdadii labaad ee ugu murugta iyo saameynta badneyd dabcan guri walbana ay ka jirtay geeri
dhibaato ay ka dhalatay xilligii qarax uu dhacay kaafiyo hadii aan ku sheego gurigeyga waqtigaas joogay shaqada isku diyaarinayay qaraxa inkastoo jugtiisa aan maqlaay meel ka dheer aan joogay haddana waxaan isdhahayay kolay waa qarax yar mana filahayn ma shaqada ka dhalatay intaas leegeed laakiin markaan ma goobtii tagay sidii caadiga ahayd shaqo inaan u aaday aan meeshii inaan ka war doono aan u tagay waxaan soo arkay waxaysan macquul ahayn in qof bila aadana uu adkaysto haddii tahay in aan soo arkay dhiigii dadka haddii ay tahay inay ardaydii iyo bugaagtoodii ay ka dul mareen dhiigagii iyo weliba wixii meesha ka dhacay burburkii gawaadhida ay saarnaayeen xubnihii qof saaka gurigiisii kasoo tegay waxay igu sii naxdin badneyd arkay waxay ahayd dadka meesha jooga markaan weydiinay maamo la sheegay inay dadka dharka dhaqa ahayd oo baaf dharku waday markaa la arkay macnaha aniguna dadkii arkay aan ku jira xubnaheedii oo kala yaala iyo baafkii dharka ku jiray sidii siiya marka wax walba oo la arkoona way kala xanuun badan yihiin dhaxdadaasaan aniga igu xanuun badneed intaas xaafada ku jirta oo gaar ahaan aad wardoonaha aan ahaa dabcan waa dhacdo xanuun badan waaye sax oo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dalka soo maray dabcan si gaarana weliba dad badan u saameeyay intii ku dhimata Allah naxariistaan leenahay intii wax soo gaaray iyaguna Allah caafiyo dabcan aan ka soo laabano qaybtaas murugada haddii maanta lagu oran lahaa adigu ciide tigidaa lagu jaraa dabcan wadanka jecesha ku dalxiis halkee qaban lahayd adoo weliba xirfadaada shaqo adoo wadatid ma shaqeynay lagu dhan والله طبعا هرت قف والبا ميلو جعليها سؤاشنا آذي كذس أتاهي لكن هدي أني لدي لا تقدر لغوص وجري أضو شقيني سيد ميل آد قزا آذي لها دولك فلسطينيين تكرهن مقالة قزا أينا آذي لها هل كأسان جعل الله إنك سو شقايا أو شقاها شقاها أوتو إلا هذا الحس إما سينين وقت في سد العز شقا إدرته هل كأسان كسو شقايا لها dadkaas oo dhibaataysan muslimiinta ah waxa waa inta afkiga hadii waxa laga yaabaa in afkiga wax u gooyo aan ka qayb qaadan lahaa hawshooda iyo shaqadooda halkaas ka socota wasaas xiriirka ka dhaxeeyo gabdhaha suxufiyiinta inta badan waxa la sheegaa in wax ku jiraan ama bahda saxaafadda guud ahaan iraade inta wariye aad taqaanid xiriirada aad la leedahay ilaa intee ku qiyaas kartaa dabcan horta kaafiya dadku way ku kala duwan yihiin sida horta shantaada farad waaye dadka qaar idinkoo mihnada ku wada jira ayadan isba waji aqoonin waxa laga yaabaa meel iskugu timaada in gabadhan heblaaya la yiraahdo gabadhan heblaaya halkaas la isku keen baro dadka qaar waxa laga yaabaa idinkoo mihnada oo qod isku keen keentay in dad isku cuntaa isku dara isku guriya aad wax badan wadaagtiin horta dabcan ani 80% dadka warbaahinta Soomaalida ku jiro gaar ahaan muqdisho joogo aadan isku naqaana mana jiro qof maanta aan dhihi karo xiriir xun baan naga leeyahay way iska jiraan dadku bini aadam waaye qof aydan dabeecad ahaan isku fahmin qof aydan shaqo ahaan isku fahmin qof aydan hawl ahaan aydan isku fahmin laakiin inta ugu badan ee dadka waxaan isula dhaqanaa si saaxiibtinimo ah si walaaltinimo ah marka laga soo tago inaan shaqo wadaagno xogo marka qaarna macquul way iska tahay carabi ilka isku dhow isqaniinayaan in la isku dhaco iyadoo shaqo la isku yimaado meel la isla joogo ama wax walba idin soo dhaxgala laakiin inta ugu badan dadka si fiican baan isula dhaqanaa oo 80% sano ku sheegtay dabcan ciiday markii laga soo tago shaqada warbaahinta hadii fanka la yiraahdo xataa warbaahintiisa hoos geli dabcan baad warfaafinta adeeg fanka isku tii والله كافي horta laba shay horta waliga kuma fikirin inaan tahriibano kuma fikirin inaan fanaan noqdano kuma fikirin laakiin heesaha waa dhageystaa 90% ama 80% ama 70% hadii tahay kuwii hore hadii tahay kuwii dhexe iyo hadii tahay kuwii dambaba xogo kama dhexbaxsani waa ku jira waa dhageystaa heesana waa xogo iskuma xumin aad iyo aad fanaanka aad ileed maanta hadii yaa taageertaa u fanaaniinta Soomaaliyeed waa bad oo la qiyaasi karo fanaanka ka soo qaban lahayd horta fanaaniinta marka la yiraahdo yaa taageertaa fanaaniinta waa saddex qaybood waa qaybihii fanaaniintii hore
fanaaniintii dhexe iyo kuwa ugu dambeeyay dabcan hal fanaan lama taageeri karo kaafiyo waxa iska jira fanaanooyin mararka qaar heesaha ay qaadayaan sidaysid qisadooda ama adiga lagu talagalay fanaaniinta qaar ay sidaysid talo wadaniyad waa heesta si maxaalada dalka arkaysa fanaan walba macnaha mararka qaar muujadu uu galaayo waxa laga yaabaa inaad si u aragtid aniga fanaaniintii hore horta fanaaniin badan aan aad u jeclahay jira oo aan heesahooda ii dhageysto waqti ku bixiyo fanaaniinta dhaxana qaar baa ku jiro fanaaniinta dhamaan inta ka wada salaameena aad u salaameena magaciin hajiraan leenahay sidaas badan kala maarminaanahay fankii saxaafada isku ma kala maarmaan dabcan waa runta barnaamijkan kadis mar hadaa maqashay waa isku kadiya inta dabcan hal hees oo kaliya noo qaad hal hees waxa ku qaaday hees maanta dhageysanayay iyo dabcan heesihii hore waaye halkaan aan ka salaamayaa hadaba qalde heestayaan la qabsan aan fanaankii mihi fanaanad mihi waxa waaye waa isku dayayaa maam qadar daharciga heestan qaada aada ku salaamayna aan ku leenahay maamo magaca hajiro haddii dhagta ruux la jaro dalolku wuu joogayaa jaleelada geed ku yaal midhaha laga jalamsadaan haddii dhagta ruux la jaro dalolku wuu joogayaa jaleelada geed ku yaal midhaha laga jalamsadaa jiriyo hadda jooguhuba admigu waa isjiidhayaan haddana laba jacayl dhexyaal sinaba uma kala jarman jiriyo hadda jooguhuba admigu waa isjiidhayaan haddana laba jacayl dhexyaal sinaba uma kala jarman joog waar hooy ka joog waar hooy ka joog waxbaa jira ee ka joog hajoobin caashaqe ka joog kaafiyo mara waxaa dib ii geysay tiyaatarka qaranka xaggaas iyo kor waxaa leeyahay asxaabta hargal haddaba haddii codku xoogo la israada khadra ma u dhowid qadar maama qadar mar waliba salaam aad baa ku salaaminaa maama waxa ku leenahay madaxa noo saaran tahay saaxiibada waxaan leeyahay halay soo dhaweeyada fanki xagiisa u dhawahay sababta telefoonki aniga reyn ciise qarun laakiin haddii asxaabtu soo dhaweeyaan halaga yaabaa marmar sidan iyo kale aan idinku soo tuuro aad iyo aad ciida aad u mahadsantahay aad mahadsantahay adigana kaafiyo markalna ku soo dhaweynayna aad mahadsantahay kuleeyahay hadana aad iyo aad barnaamijkeena gaarka ah ee taxanaha inoo sii ahaan doonaan intaas ayuu maanta inooga eegay qofkii ugu horeysa lagu bilaabana ciida aroos maagana ayaa inoo ahayd gabagabadeena barnaamijkana sayaan kusoo gabagabeynayna haddaan nagu cusub tahay soo dhawow subscribe-kan dhac inoogu saadaad saaxiibadeena hore ka mid ahaydna sii sheergareen muuqaalkan si inaguna ay nagu noqoto dhiirigelin sidaas iyo nabadgelyo aniga ciido iyo kiin oo dhanka kaamirada inoo joogtaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu